saaxiibayaal ku soo dhawaada channelkayga Bare 24 channel. Maanta waxaan idin soo gudbinayaa barnaamij aan hubo inaad dhammaantiin aad ka wada heli doontaan. Barnaamijkaas oo ah qaabkii aad u quruxsan lahayd keyboardka telefoonkaaga. Aynu sii guda galnaa marka barnaamijkeena si aan u quruxsanno keyboardka telefoonkeena waxaan Play Store-ka aan kala soo degaynaa application la yiraahdo Gboard. qaybta wax lagu raajo ayaa waxaad ku qoraysaa Gboard si aad application-ka Play Store-ka uga dhaxesho. Annaga hadda waa inoo diyaarsan yahay oo mar hore ayaan soo degsanay. Adiga markuu qaybtan ku keeno install ayaad leedahay si aad u soo degsato application-ka lagu quruxsado keyboardka telefoonka. Si aan u guda galno marka qaabkii aan u quruxsan lahayn keyboardka telefoonkeena waxaan furanaynaa application-ka oo open ayaan leenahay. open markaan dhahno qaybtan ayuu noo keenayaa si aan uga gudubno qaybtan waxaan ka dooranaynaa enable in setting. waxaan ka sii dooranaynaa Gboard. calaamadda ayaan tigta saaraynaa. okay ayaan leenahay. qaybtan ayaan ka sii dooranaynaa si aan uga sii gudubno oo aan u tagno keyboardka meesha lagu qurxiyo. Gboard ayaan ka sii dooranaynaa. waan sii ogolaanaynaa oo qaybtan ayaan ka sii dooranaynaa. allow ayaan leenahay. kadib dhan ayaad sii dhahaysaa oo waxaa lagu geynayaa application-kii gudihiisa. waad u jeedaa application-ka qaybo kala duwan ayuu ka kooban yahay. qaybta dhamiskan ayaana qusaysa si aan u quruxsanno keyboardka telefoonkeena. aynu furanno marka dhamiska. saddex qaybood ayuu ka kooban yahay. qaybta koowaad oo ah markaad doonaysid in keyboardka telefoonkaaga aad quruxsatid oo aad saaratid sawirkaaga ama sawir shakhsi aad u xiisaysid aragtidiisa inaad mar walba aragtid ama sawirkaaga ha ahaado ayaad qaybtan ka dooranaysaa. qaybtan ka hooseyso waa qayb color oo keliya. qaybta ka sii hooseysana waa sawiro aad iyo aad u qurux badan. si aad sawiradan keyboardka u saaratidna waxaa waajib kugu ah inaad soo degsatid oo aad download dhahdid. aynu baroobayno marka qaybta koowaad oo ah in keyboardka telefoonkaaga aad saaratid sawir adiga kuu qaas ah. aniga hadda waxaan tijaabo ahaan aan u saarayaa sawirka ciyaaryahankan ayaan keyboardkayga saaranayaa. markaan sawirka doorto oo aan tigta saaro qaybta kore open ayaa ku qoran. qaybta open ayaan dooranayaa. qaybtan aad u jeedid marka sawirka sidaan lagugu keeno waxaa lagu leeyahay sawirka aad keensatay size-kiisi ama cabirkiisi waa uu ka weyn yahay keyboardka. soo yaray sawirka. marka si aad u soo yaraysid sawirka waad labada zoom ayaad dhehaysaa. labada suulka iyo farta ayaad sawirka ku qabanaysaa. zoom ayaad leedahay. waa kan waad u jeedaa. markaad qaabkan aad u samaysatid next ayaad ka sii dooranaysaa. waa kan waad u jeedaa sawirkii ayaa lagu saaray keyboardka telefoonkaaga. qaybtan kore sawirka ayaad zaid ugu soo muujinaysaa haddii aad doonaysid in sawirka uu si zaid ah kugu soo muuqdo. haddii aad doonaysid in sawirka uu xoogo kuu soo muuqdana gadaal ayaad u celinaysaa oo waa kaas. haddii aad doontidna waad sii qarinaysaa. annaga hadda meel dhaxaad ayaan ka dhiganaynaa. marka meel dhaxaad aan ka dhigano kadib dhan ayaan leenahay. kadib waxaan ka sii dooranaynaa si aan u xaqiijino in aan keyboardka saarnay sawir keyboardis ayaan ka dooranaynaa. keyboardis markaan ka dooranno waxaan ka sii dooranaynaa apply ayaan leenahay si aan si rasmi aan ugu saarno. waa kan waad u jeedaa tig ayaa saaran sawirkii keyboardka ayuu si rasmi ah inoogu saaran yahay. aynu soo baroobayno marka ama aynu soo fiirino in keyboardkeena uu inoo saaran yahay sawir shakhsi aan annagu doorannay. qaybta whatsappka ayaan furanaynaa. group ayaan kasii furanaynaa. kadib ayaan fiirinaynaa qaybta wax lagu qoro. waad u jeedaa waxaa inoo saaran sawirkii aynu soo doorannay. aynu fiirina marka in aan keyboardkeena saaran karno qayb color ah. application-ka ayaan furanaynaa. dhamis ayaan kasii dooranaynaa. qaybta color-ka waatan color-kan gaduudka ayaan ka dooranayaa si aan keyboardkayga u saarto
keyboardis ayaan doortay. Hadda kaliya waxaan dooranayaa apply. waa kan waad ujeedaa tigtii sawirka waa laga soo qaaday oo waxaa la saaray qaybtii kalarka gaduudka ahayd oo aan doortay. aynu hubinna marka in keyboardkeena uu kalarkan gaduudka inoo saaran yahay iyo in kale. qaybta WhatsApp-ka ayaan furanaynaa, kadib group ayaan kasii furanaynaa oo meesha wax lagu qoro ayaan ka dooranaynaa. waa kan waad ujeedaa waxaa inoo saaran kalar gaduud ah. aynu fiirina marka sawirada originalka ee quruxda badan ee ku jira application-ka in aan keyboardkeena saaran karno iyo in kale. Themis ayaan kasii dooranaynaa, hoos ayaan usoo degaynaa. si sawiradan aan u saarano waxaa waajib inoogu ah in aan download u dirno sawirada ku jira application-ka. isla markii ayuu soo degayaa oo waqti badan ka qaadan maayo. waa kan waad ujeedaa sawirkii waxa uu isku diyaariyey keyboardka, kadib apply ayaad leedahay. aynu soo fiirino mar kale keyboardkeena. WhatsApp-ka inoo fur. waad ujeedaa waxaa inoo saaran sawirkii aan gadaal ka soo dooranay. haddii ay tahay markaagii kugu horreysay oo aad soo booqato YouTube channelkayga Bara24 channel, fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad subscribe dhahdo YouTube-kayga, qaybta gambalaalkana aad ka doorato si aad u rukumato fiidiyowyada aynu soo gelino isla markii aynu soo gelinana ay kuu soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan.